kulanti waxaan u wanaagsan qiyaarta hawada naga daawanaysaa ku soo dhawaada warka telefishinka Hilaac qodobada aad ku daawan doontaana waxa ka mid noqonayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray magaalada Kampala ee dalka Uganda dawladda Soomaaliya oo deeq gargaar kala wareegtay dawladda dalka Turkiga ciidamada Kenya oo faaruujiyay saldhig ay ku lahaayeen gobolka Jubbada Hoose madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Isaam Axmed Madoobe oo soo xiray shir u dhaxeeya beela ku wada dagaalamay deegaano hoostaga degmada Luuq ee gobolka Gado maamulka gobolka Banaadir oo bilaabay diiwaangelinta dadka ku dhaqan degmooyinka gobolka Banaadir qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka telefishinka Hilaac madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo gaaray dalka Uganda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi oo hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda halkaas oo ay uga bilaabatay safar shaqo madaxweynaha ayaa muddada uu joogo dalka Uganda wuxuu kulamo gaar ah la yeelan doonaa dhigiisa dalkaasi Yoweri Museveni oo kala hadli doono xoojinta xiriirka labageesoodka ah ee Soomaaliya iyo Uganda qorshaha kala guurka howlgalka ADMIS iskaashiga dhinacyada amniga iyo ilaalinta xasiloonida gobolka safarka madaxweynaha jamhuuriyadda ee dalka Uganda ayaa qayb ka ah booqashooyinka isxigxiga oo uu maalmaha soo socdo ku kala bixi doono wadamada ee ciidamadu ka joogaan Soomaaliya isagoo madaxda dalalkaasi kala hadli doono arrimo ku saabsan qorshaha kala guurka howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya dawladda Soomaaliya oo deeq gargaar kala wareegtay dawladda dalka Turkiga munaasabad kooban oo ka dhacday dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ayaa dawladda federaalka Soomaaliya waxay kula wareegtay markab weyn oo siday shixnad gargaar oo dawladda Turkiga ugu tala gashay shacabka Soomaaliyeed ee tabaalaysan gargaarkan ayaa ka kooban qaybaha kala duwan ee raashinka teenooyinka iyo waxyaabaha kale oo aasaasi u ah nolosha kuwaas oo dhan 3,000 oo tan gargaarkan waxaa la wareegay ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo uu weheliyo gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed Maxamuud Macalin Cabdulle waxaana sidoo kale xafladda qayb ka ahaa safiirka Turkiga u jooga Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan hay'adaha gargaarka bini'aadanimada u qaabilsan Turkiga dadkii loogu talagalay gaarsiino annagoo mar kale kaashanayno dawladda Turkiga walaalahayna dabcan waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo runtii maanta nagu sharfay inuu hawshan goobjoog u noqdo waxaa kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa safiirka walaalahayna Turkiga iyo hay'adaha Turkiga qaasatan hay'adda AFAD oo ah hay'adda dhigayna ah hay'adda maareynta musiibooyinka Turkiga oo runtii hawshan hogaaminayso aad iyo aad runtii ugu mahadcelinaa ummadda Soomaaliyeed runtii xaaladda ay ku jirtaahi waa xaalad runtii aad iyo aad u cariiri ah laakiin waxaan rajaynaynaa future-keena ma xumo ilaahay idinkiisa waxaan haysanaa walaalana garab taagan Soomaaliyeed horta inaan ugu bushaareeyo haddii berigii hore marka ay naftu baxdo oo xooluhuna ay baxaan inta ilaacadaha laga daawado ay dadku inoo soo gurman jireen sidii madaxweyne Erdogan isagoo dalkiisa jooga oo cilaaqaad badan aan la lahayn dalkan Soomaaliya uu tiifiyada uga arkay duruufta ay Soomaali gashay 2011kii oo ay inoogu soo gurmadeen haddii xaaladdu ay saa ahaan jirtay hadda ma aha hadda bila ka hor maalmo ka hor isbuuciyo ka hor 6 bilood ka hor ayaa qorshe dawladdu ay ka sii dejinaysa markabkan aad aragtaan ee baaxadda leh ee 3,200 oo tan oo cunno iyo mataqaanaa gurmad ay saaran yihiin waa mid ka mid ah maraakiib fara badan oo arrintaas nala xallin doona oo ka imanaya dalalka aynu saaxiibada nahay sida dalka Turkiga oo hormood u ah haddii berigii hore muwaadiniinta Soomaaliyeed intay soo luudaan oo nafta la soo cararaan ay xamar ku soo ururi jireen hadda hay'adda Sodma waxay bakhaaro iyo xafiisyo iyo howlwadeenna ku leedahay dhammaan geyiga Soomaaliyeed haddii qayladhaanta la maqli jiray
arrintu hadda waa ka hortag ayay taagan tahay iyo la tacaalid inta aan mataqaanay gurmadka la filan intaasi waa arrinta aynu meeshan isugu nimid waxaan rabaa inaan si buuxda ugu mahad celiyo walaalaheena Turkiga oo halkan uu ka joogo masiilkii u sareeyay ee safiirka ahaa iyo howlwadeenno kale waxaan rabaa inaan dul istaago cilaaqaadka innaga iyo Turkiga inaga dhaxeeya wuu ku bilaabmay cilaaqaad gurmad bini'aadanimo sanadii dambe oo xilli adag oo dalku uu halis galay ay inoo soo gurmadeen laakiin laba shayba inaan halkan ka cadeeyaan rabaa ma ahayn cilaaqaadkii u horeeyay oo aynu yeelanno boqolaal sano ka hor ayaynu mid baayac mushtari iyo mid dawladeed iyo mid diimeed ba lahaan jirnay laakiin cilaaqaadkan dambe ee hadda la keenayo 2011 ka bacdi bilaabmay gurmad bini'aadnimo ku bilaabmay haddase intaan waynu isla soo dhaafnay waxaynu leenahay cilaaqaad baayac mushtari oo baahsan waxaynu leenahay mid xiriir labada dawladood ka dhaxeeya oo ay wasaarad walba la shaqeeyaan waxay ku leeyihiin dalkeenna safaaradda ugu weyn ee ay mandaqadan ku leeyihiin gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo shir gudoomiyay shirka guddiga joogtada ee golaha aqalka sare gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa shir gudoomiyay kulanka toddobaad ee guddiga joogtada golaha aqalka sare oo ajandihiisu ahaa dib u eegista ajandayaasha golaha aqalka sare kulanka oo ay goobjoog ka ahaayeen gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare Cali Shacbaan Ibraahim iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad Cabdullaahi Xirsi Timacadda ayaa ugu horreyn warbixin looga dhageystay gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada iyo garsoorka kuwaas oo faahfaahiyay halka ay marsiiyaan waajibaadka gudashada hindasha sharciyeedyada kala ah xeerka shaqada Soomaaliya oo ay ka shaqeeyaan guddiga arrimaha bulshada aqalka sare iyo sharciga ilaalinta xuquuqda naafada oo ay ka shaqeeyaan guddiga garsoorka aqalka sare waxayna xuseen in dhowaan fadhiga golaha guud la horkeeni doono si loo marsiiyo akhrinta labaad sidoo kale xubnaha guddiga joogtada ayaa dood iyo falanqeyn dheer ka yeeshay jadwaleynta ajandayaasha kale ee golaha horyaalo si looga shaqeeyo inta aan la xirin kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka 11aad ugu dambeyntii gudoomiye Cabdi Xaashi ayaa bogaadiyay shaqada ay hayaan guddiyada golaha aqalka sare wuxuuna go'aamiyay in la jadwaleeyo sharciyada golaha horyaalo si loo guda galo doodista maadaama waqti kooban uu ka harsan yahay xiritaanka kalfadhiga shanaad madaxweynaha maamulka Jubbaland oo soo xiray shir u dhaxeeyay beela ku dagaalamay deegaano hoostaga degmada Luuq ee gobolka Gado madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Isaam Axmed Madoobe ayaa aqalka martida ku soo xiray shirka dib u heshiisiinta beelaha walaalaha ah ee dhawaan ku dagaalamay degmada Luuq ee gobolka Gado madaxweynaha ayaa tilmaamay ahmiyadda ay leedahay in beelaha walaalaha ah ee dagaalamay in ay garowsadaan muhiimadda ay nabaddu leedahay iyo in dadka ku wada nool degmada Luuq loona baahan yahay in nabad lagu wada noolaado waxa uu madaxweynaha oo u mahad celiyay dhammaan odayaasha dhaqanka gaar ahaan malaaqyada uwaasyada iyo waxgaradka deegaanka oo u hoggaansamay awaamiirta dowladda ee ah in laga wada shaqeeyo nabadda iyo wada noolaanshaha bulshada odayaasha labada beelood ee ku dagaalamay degmada Luuq ayaa heshiis ka gaaray waxyaabihii dhacay inta uu dagaalka socday madaxweynaha ayaa sheegay in maleeshooyinka colaadaha hurinayo aan laga ogolaanin deegaanada Jubbaland isla markaana tallaabo laga qaadi doono hubka oo gacanta shacabka gala iyo abaabulka maleeshiyada qabiilkana aana marnaba la aqbali doonin maxkamadaha iyo hay'adaha cadaaladda ayuu sheegay inay gudan doonaan shaqadooda isla markaana xukunnada qisaasta ah aanan laga qaban doonin in mag ay kala qaataan
qabaa'ilka iyadoo xukunka qisaasta oo la fuliyo ee yareyn doonto dilalka macnadarrada ah. waxa uu kaloo madaxweynaha xusay in dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan loo baahan yahay inay gacan ay ka geystaan sidii dhaqangal oo u noqon lahaa heshiiska maanta la gaaray Jubbalandna ay ka go'an tahay in mar dambe ayna soo laaban colaadda nuucan oo kala. shirkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Jubbaland ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Cabdi Cabdiraxmaan, madaxweyne ku-xigeenka koowaad Maxamuud Said Aadan, xildhibaano wasiiro ka tirsan maamulka Jubbaland iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta golayaasha kala duwan ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo odayaasha dhaqanka iyo labada beelood ee shaqaaqadu dhex martay. guud ahaan warkii telefishinka Hillaac waa nagayta.